ولا لما هذا اللي قلت شو قال لما هلاني أبا يعني كلي وايد دبعت كلام كوسة وحنا لا اسميه هيا حبيبتي ما هي سوعت دي سكوبة كاميرا دانكو عرقني أبا وحنا كوسة وحي المالي قاتي أو يا كاكا تبسنك دولة سويدن أوكي هيا بسنك أبا إننا قبي أو إلما أنا قد علي قولي قصة بري إلمي هي عليك قاتي قولي أو قولي أنا قولي أسكنه قيمة تاعي هيا guri kala aan guuray asagu leeyahay marka rabina isku qoro guriga wada buriye ilmi dawladda waxay u leeyeen guri keensan ku siinayna gurigaaga aad dhaaftay aba الله بايرا الله يوي على الحمض ما يسوينا بعد شوكتا ولا على aba iswiidina jooga ideegana qofi caawiyaan waa ilmahayga dad nina iga qaatay madow ahaana lagu ciilay iska xidha kamarada ooysa wallah لا داين انت اوين ترتب هذا abayo caawisan kaaga baahanay ninkayga Soomaali ma aha ideega markaan weydiista caawis ilmahayga liga qaatay dawladda waxay dhan gurigadaas ka noqday guri keenso qofi caawiyaan laaha abayo ninka يا واي قال ninka caruurta qaatay yaa waay aba ninkan biyaan waa 16 sano is qabnay guriga u guurnay guriga aan noqay gurigiis markaa rabay inaan guuro guriga iga qaatay wuxuu iga buriyay nakalo ku aroosay guriga ilmaana oo iga reebtay dawladda waxay dhan ilmaha guri ma haysto guri keenso هيا الله هو يدوينك Soomaaliyeed meel buu ku dhiban yihiin aba ida ma ka dhalan walaal ma ka dhalin maxaa loo qabanaya ay doonaysaa imika marka suka bal horta hada emotional bay ku jirtaa bal hayara ooydo markay dhamaysato ay nala hadasho aba dadkayga dhan qof caawiyaan waaye qof kastoo ay caawi ilmihi Afrikaan miyaa leeyahay ilmahayga meel ku dhibtoodeen سوق حبيبتي لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لا معان بل سيف عن صفريسو هكو عاويان ولا لذا وحانو كاربنا إنكو نوشيك ولا له سوى ناكسن نولا هذا وأوك هاي إيموشنال بعد نقطين حبيبتي تورت بشيطانك شيطانك ويسو قف بيركيسي كما قيها باتاي marka xabiibti macaan magacaaga horta noo sheeg walaalo waa muudkiiba inta la saar yaa saaray muud adaa galay miya qaali macaan intaydaanka gooja caddo iisoo laaba adigu gooja caddo iisoo laabo walaalo qaali qurxee قرح شيطان كسكنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده نبي محمد عليه الصلاة والسلام كصلي إلهي سبحانه وتعالى وحبا وركبا ورويني متشرو ما أنت you need only الله ربك وين واحد كابد أباح انتهي وما عرفتي وحو البكو سخرة ولا على معان ولا على مقعاق الله شيك قال قرحي هذا عبدي عليه ها ولا ليه إنجليزك يكونوا ليه قف كاستمر كان واحد حلين المهاج أفريقيا واحد من كودرينه وابكو أرحم ترى أنا وام حي المهاج أفريقيا والمصو هو يسوم على الشيء doesn't matter where قفك عاوينا الحلين على حد انت دتك على حد لين أنا عاوينا أنا مركي أنا قال قرحي ماي هرت التلفون قال قرحي عو ما تلو دا عو ولا له أبا عذر عبدي اوكي عذر عبدي بقى لقدها ما شاء الله تبارك الله الله يعسك ولا له عذري ولا له سويدن بعد كنت هاي ويل كان بيانا اسقبتين امي سعرورة ولا شيء ولا المعان لما عنقا وندلي ويل يا كبر مسلا بكبر مسلا بويل ويل يا كبر مسي جيران ولا له أبا 16 16 iyo 16 ما شاء الله تبارك الله اوكي marka ninkii waa isku xumaateen wuxuu ka qaatay caruurtii miyaa
maya baa gurigaan deganaa gurigii markaan noqay guri kalaan qaadanay mogtahay gurigiisa markaan rabay inaan u guuro naag kale ugu watay gurigu iga buriye marka ceerta waxay ku dhaheen guriga adaa iska dhaaftay guri ma ku siinayna guri keenso guri kale keenso guri kale ma keensan karo haddaana shaqeynayn inaan soo ijaarto markas kadib ay iga bixinayaan sug haddaba so isagu ninkii gurigii iyo carruurtii wuu isku qaata anaa wadanka keenay haddaas xaasid xabaal lagu ride walaalahayga markaa waxay naceen ninkaa wadanka keentay asaankuu gala tareenka isku tuuray ee walaalu arxan daranaa walaalayaalo subxaanaka yaa cadiim haddayna maqlayaan walaali macaane eeg horta gabadh Soomaaliyeed baa tahay maasha Allah tabaarakallah gabadh Soomaaliyeed baa tahay dad badan baa kolay ku garanaya dad badan baa kolay familigiina garanaya waa familiga Ingiriiska degan khalad waa qofka ma aragtay in oo lagu takooro inuu ajaanib guursado ama ma aragtay familigood xataa uu dhaho tareen isu dhig maxay tahay xabiibti subxaanaka yaa cadiim ma isu dhigaysa ninaa wadanka keenta ilmahan kaa qaada tareenka isku digay ku jawaabay ma walaalaha hooyada yaabaa dhaleen baa saa dhahayo waa qalbiyin xabiibti ilaahay ma oranin ma fahantay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma oranin inaad tareenka isu dhigto هادين حبيبتي مركز no way وخلدين سبحانك يا عظيم إلهي سو هذي كواسنا ربي قوينا واحد كها سو هذي ضدك عين كاس ما فهمتين هو يا صوماليات باتهاي صومالي وقت بهوي وتهاي نينكي جورجي يبو سوق عطي عرورتي هذيك مركز واحد دم بيقول جوسو أوجي ما تشيل صومال ولا علو يا باي دم بما يحيقول أنا عرت جورجي أنكو سينا دار نفتي جورجي كلا كان صادق المي جاي قاطي المي ما سينا أنت طامل كورة فاتسي ninkii ilmi ma sinay miyaa cunto bay u ka safraa maalin kasta nin oo aga tagaa markasta ilmihii ooynayaan meelaan geemaha cideega iyo dadkaygan markaa u imaadan waxay leeyihin mid kastaba waxay leedahay afrikaa may usoo dhashay way ka jeesanaysaa markaa oo inagii baaba afrikaane na walaal horta soomaalidu arxam darana isuga qaaligaas qofna ma soo qabanayo inanta oydo emotionalkeeda ha ka hadasho kadib baan dabna dadka soo qabanaya walaalo markaa xabiibtii Somali Mohammed maadaama familkiina saayahay walaalo macaan dhageyso Somali Mohammed ay dhageysta gabadhu marka hore waa Somali walaalo gabadh Soomaaliyeed ma tihid gabadh Soomaaliyeed weeyaan midda kale guys qabaa'ilka waa wax la isku gorto waa sumad ma fahanteen gabadhan waa gabadh Soomaaliyeed qabaa'ilka waa la isku gartaa xabiibti waxaa laga yaabaa dad fara badan inay hadda ma aragtay oo qabaa'il adiga kula ah ay dhahaan inanteeda anaga madaxa saaranayna hadii iyaga la waayana Soomaali ahaan anaga kugu caawinayna ogow taas inaadeen ma faham marka anaga ceeb kaaga dhigaynin adiga qabiilka ka soo jeeda Soomaaliya ani sheeqalan ka soo dhiibaa bul ala kuriyo sheeqal dad maaha ما معاك شيخال شيخال حبيبتي dad xuniga dad wanaagsan ba waa leeyahay sidaan anagu dad xuniga dad wanaagsan kana deyn ata ilmaha dhalay marka walaalay la xilay ilmaha iska ilo noloshaada fiirso ilmaha sawo ilooba cunuga jirana qaba xanuunsana baay okay horta guys Soomaali Maxamed waxaan ka codsanayaa waliba inanta raaskeeda oo dadkeena ma sha Allah sheekhaal wadad wanaagsan wadad culimo ah walaalayaalow gabadhiina inay maanta halka ka oydo ceeb waaye wax wanaagsan ma aha talabaadna Soomaali Maxamed baan uga hadla hadlaaya qof walba qabaa'ilkiisa waxa qabiilka loo jecel yahay la isku taageeraa waa in ma aragtay maalinta la isu baahan yahay ayaa qabaa'il lagu taageeraa qofka waa maalinta la isu baahan yahay walaalayaalow maanta inta marka laga soo gudbo anigu aan la hadlaay gabadha dadka ka dhalatay tareen isu dhig in la dhaw waa laga fiican yahay aniguna Soomaali Maxamed ayaan maanta la hadlaaya ani maanta hadii dhibaato ay qabsato naag isaaqa ay baan dhaxaya yaa isaaqo isaaq marka laga soo dago waxaan leeyahay dhammaan Soomaali Maxamed iyo caawiya marka xabiibti hadda anaga Soomaali Maxamed inta yaad uga baahan tahay caawimo maxaa u baahan tahay xabiibti maxaan ka caawinaa Soomaali Maxamed maxaan ka caawinaa waa guri jaarali dhaaysan uu jaarta ma garanayo guriga ceerta waxay ku dhaheen gurigaan ku siino waa iska tuurtay guri kale adiina keensatid waa daarin inaan ka bixino in kaaban Sweden kugu qaadanaysa marka inaad guri ijaarato qaali
Aba gacan labaada ay jaaran karaa marka hore marka ilmaha soo qaatay gur way siinayaan marka ilmaha daada wadan wax ma lagu siinayo. Okay, sugan kugu darsan magacan maadaa iskale mise qof kale iskale oo kugu caawinayo. Ani TikTok ma haysto wax fiican la wixii kara iyada gabadha iskale. Okay. Sug hadaba dadkaagi oo dhan waa inoo maqan yahay insha Allah. Dad lacag leh oo shiiqaala oo naqaano halkan qolka ku jira ayaa shoogo oo waxaas oo dhan oo kirada hadda bixinayo oo gacan labaad bixinayo gabadha marka guriga kiradiisi baad nooga baahan tahay miyaa qaali Baay guri gacan labaad ma soo ogaatay meesha ku yaalo baay tuulada ilmaha joogaan aniga magaalada Stockholm maaday gabadha naaga la deganaa guriga waxay tiri ma joogi kartid hadee ceerta ku caawin ceerta inta way diiday magaaladan deganahay Stockholm way diiday waxay ku tiri meesha ilmaha ku noqo marka meesha ilmaha u dhow guri ma laga helayaa oo intay kugu qaadanaysan ta ka helayso baay wallahi bila guri waa laga helaa lacag qof aan wadan ma heli kar maanta ugu dambeysay dada dhahay guri waa haysanaa. Okay lacagta hadda accounting-an la adigu meel hadaan ku soo shubno oo accounting-an laga soo saaro sidee la yeelayaa marka accounting-an ma laga soo saari karaa ma qaana baay ani maskari gabadha lama garanayo gabadha PayPal ma ugu xiraya accounting-an ma ka soo saari kartaa waxay ku dhacday maxaa ku soo saari karaa kas u sheeg telefoonka uu jabay ani telefoon ma haysto ka soo wici karo oo iga jabay telefoonka maya PayPal ma ka soo saari kartaa lacagta hadhow ka soo saari karaa Okay haddaba suga waxaan soo qabanayaa Maxamed Weli ma joogaa xabiibta ciishoon Soomaali Maxamed oo macal shiiqaal wadata halka u saarantahay oo halkaas u saarantahay hal mar ma hadli karaa xabiibti aniga hadal inantu waa mar dilaace intaan hadda ani meeshaan ugu imaaday haye aan soo ku bariya ani xataa sa ooya way daalisay wala lama aamusiyo qofka ha oydo waa ooy kartaa way si zaid si qiiroonaysa ma ha qiirooto abaa dadka lagu maceliyo oo hinta ha oyso waa hooyo Soomaali beerkeeda ka maqan yahay hays walaal oo hinta lama ku soco qaale adigu ku soco Maxamed Weli ma joogtaa ku soco qaale haye suuqa basara soo qaadanaya haye soo qaada ka basar abaayo Soomaali Maxamed qofka lama caburiyo ma la dhoo ha ooyin kala hadla wax yiri sina sicilsana ana ha ku dhaay ooyintu way fiican tahay caafimaad ku jiro iska ooy dhib ma lahan ooy iska ooy dhib ma lahan laakiin marka oo haddays wax yiri isku celi adkayso maya walaalo macaan aniga okay baan u arkaa gabadha Soomaaliyeed Maxamed Weli waa ku soo qabanay sug walaalo sug gabadhan hadashay Soomaali Maxamedey maanta waraa inoo yaalo gabadhaasa inoo taalo Soomaaliyeed labada caruura laga qaatay waa gabadh dad balaaran bay ka dhalatay marka ugu horeysa Soomaali Maxamed bay gabadhaasi ka dhalatay waa gabadh Soomaaliyeed oo magaca Soomaali inala wadaagto haddana marka Soomaali laga soo dago waa gabadh shiiqaal dad culimaa ka dhalatay aniga dad badan oo shiiqaal halkan ay ku xidhan oo lacag badan haysto ma fahanteen walaalayaal Soomaali Maxamed oo aan gabadha caawino maanta waa maalinta qabaa'ilka la isugu baahan yahay waa maanta oo kale qabaa'il marka laga yimaadana Soomaali Maxamed baa nahay so guys gabadha Soomaalida la caawiyo hello guntado that's it that is it war kale ma jiro muslimnimo iyo Soomaalinimo ha lagu caawiyo guri baa laga rabaa nin Gambiyaani caruur u dhashay ninkii Gambiyaanka caruurtii uu ka kaxaystay gurigu kaga tagay warka dhan inan baa inoo sheegaysa inantan Soomaaliyeed hatta waa inan inagu xidhnayd ee hadda ay soo qabsatay waa hooyada Soomaalida ooynayso dadkeedina waxayba dheen tareen isu dhig what the fuck waa maxay tareen isu dhig alla baayay caloolada ka Soomaali Maxamed intabe inantan baa hadlaysa markaa rabta inay hadasho oo dhiig iskaliso Soomaali Maxamed ay gabadhan wax yiri sala u sharxay iisoo jeedina ana u sharxay wax yiri isu okay kamarada baa ka hadal adigu soo fadhiiso jazaaka Allahu khayr ani ku hadlay aamus السلام عليكم والسلام نعيمة وعليكم السلام ورحمة الله ما كنت شيء نكو عاون أنا أركتين ها صاحب فريسين أنت الله قبل عاون سابتو فريدة أنا وعبسنا كلية ها عبسنا باي شيطان كسكنا ربيسن كنا قبصو هل مرة كنت سيا وجهي كبعدين وقرصنا هيدا هي
وارتاع قرح لي ما شاء الله هي ناساس هذا الهدبة إن أنت كنت جدي أضرب هذا المركب وايه marka iyada ku jeediya waa hadlaya gabadha تلفونك واحد كسر تاع دون كسر إكفوسية كسر تلفونك waxaas ani xaafada gabadhan gabadha saaxi asxaabna hana waay ma fahantay هي waa u imaaday markaa u imaaday mobilkeeda oo saan u dansan iyada ooyeysa u imaad mujida mobilkeeda dhulka ku dhac woo jabay هي boortadeedana albaabkay taalaa suga ku tusiyay بورصة دي ها naagtay la joogto way soo raacdays mujida boorsadeedina ها way ooyeysa markaas waxay tiri naciimo barangi naag gabadhaasaan jeclahay ii raadinaayo fahmay qof caawiyaay iyada ka heestaa ay dhahdo waan jeclahay in ii raadi kartaa marka ani farandis la tahay soo calafto markii soo gasho waa ku wacaya fahmay marka hadda iyada way qiiraysantaa suxna u hadloosaa laakiin waxay dhahday ninkii ani waa isku fiicneen maama naga dhaxeeyna gurigaana nagu yar koo kale u guurayna oo ii hayo waa ku dheetri maadaama asiga oo safku ku jir asaa qaatay tiri ma fahantay saa gurigii qaatay ها صوت صفك أساق قال أسيد قرية هي ستة أساق قر الآن أساق صفك قال ما فهمتي هاي بعدين وحيتري مدام أو أسيق أو صفك قالي سو قرق مركو صوها لأن ناك هوسك وطو هاي هاي وحوير مركا إن أدير إسكتك إن أديرتي صوها لمركا ما فهمت أو جنبيانا جنبيانا هاي هاي ملي والله نعيم أنا أدسكم إذا كنا هنجستي نوا إماضي فهمي هاي بس أويري ترينا نص ما فهمتي هاي marka waxay tiri telefoonkan waxay tiri lacag raqiisa la gadaa maadaama hadda qaali yahay iska dhaafa soo waxay tiri lacagta ma astaahilo mobilka laga baxay hadana hayaba ku dhahay soo waqti mobil loo soo qaado deen loogu soo qaadana waa waqtiga qaadanay waa dareemi kartaa هاي soo boostada hayaba ku dhahaynay sida marka ku dhahan waxay tiri ilaa naciima raba ay tiri meel kale kuma nifsifisahay laba bilood af familigeyga la jooga wax qof ii qabanayna u jeed ma fahanteen هاي قبيل له ha qabiilka carsha family waaye family ku yahay hada فاميلي عشان قبيل كده هاي qabiilka waaw qabiilkaaga waaye familygaaga maahin haweenin marka iska way dib mala caafimaadka ku jira just هاي marka waxa ku dhahay naciimo hadda agteeda tagto uu caawinaad waa ka helaysaa just meel cawada seexata male ani xataa raaci rabtay iyada ma rabtay inta dadka raacdo sababtoo waxay tiri dadka xanuunka ee ka soo qaatay qaar hadda waxay dhahay naag waxay tiri dadka waxay tiri dadka isoo buubiye leh kamid taadna wax ma dhaantay just ma fahantay هاي marka waxa ku dhahay waayahay waxay tiri caawinaad Soomaali weyn ah weydiisana ma iigu caawin kartaa inaan qabsado yes haya waa ku iri هاي saasi ku soo qabsato marka iyadana qof nin xumay waa dareemi kartaa xanuun extra waa nin adiga u Yurub wadanka keentay hadda taanish in adeertiisa ta ka hel iska baxyiri ma fahantay laakiin ma la su'aalan ku weydiinay kamuunka maxay ugu tag weydo waran weyday anigu waxa ma haysto oo hogayo baay guriga isiyaan guriga marka isiyaan marka noqay ku dheen wax ma ku qabanayna adoon guri kale keensan kaliga kamuunka guri gamuunka siina waraqda haya hada maya sukina fahansi wana naciimo kamuunka shalay guriga ku siiyaan adaa iska u celis moogtaa هاي يا guri kala dhaqaysto ka bixinay laakiin guri ma ku siinayaan just okay marka basically inanta hadda waxay u baahan tahay Soomaali Maxamed including qabiilkeeda xataa everybody oo Soomaali oo magaca Soomaali oo islaamnimo sheeganaya oo hooyanimo sheeganaya walaalnimo sheeganaya inaynu caawino oo ma aragtay lacag yar oo ay guri ku kiraysato looga bixiyo sax guri حتى تلفون واحد هسه ما جبت جست هذا guri ilmaha ay u doodoosa laakiin ani hadda iyada ma kula taliyay ilmo ma fahantay ilmo waqti inuu saa just ilmo waa ina ku birim u tabaabisto hal bilo lacag laga dhiibo wax ku tirimayso ma fahantay waa ina lacag fiican u baahan tahay in gurigaas ugu yaraan 3 bilood ee shuba karta lacagtiisa waa ma fahantay suga hadaba waa soo qabanayaa haye maxay suga labadiinuba ii suga qolka staffkiisi markay waxaan oo kala dhacaan qolku real regulation buu leeyahay walaasheen halka kaga ma tagayno biidni ilaa tomorrow iyadoo faraxsan baan rabaa inaan soo qabto biyuri ay ma joogtaa qaali biyuri ay ubax soo diray dad joogto walaal maxamed wali oo soo dhawow biyuri baan soo qabanayaa suga anaga marka waxaas oo kala xidhmaan maxamed wali baa u baahanahay waxa u baahanahay biyuri inta ugu qoran tahay waatana kulle iyadana caruurtii dhibaatada iyo waxaas oo dhan marka walaalayaal please waxa idinka baahanahay hooyadaas Soomaaliyeed maanta واتامر ورد الله سوات اوينيسو
قبائل كجايز وصمت ولا سكوبر قبائل wuxuu tiraay male لكن صومالي أهان أي ما أنت هنقول فردها waa la tacaarufuu ilaahay isku aqoonsado irmaan absolutely doona ku tareen aniga maanta wax ku qaban anaa kaaga fiican sababta cunka muxuu ku tarayaa absolutely thank you in yar isugu walaal